toddobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qaraxii ka dhacay iskoyska Zobe kaasi oo loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa sida baaritaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda VOA dowladda Soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah kuwaasi oo la dhigay jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye baraha tan ugu weyn ee uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer waxaana soo dhaafiyey damiin iyadoo barta labaad ee ex controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar control oo ku taala Say Piano halkaasi oo muddo lagu hayay markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsi ah ku soo dhaafay kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska Zobe saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambeyn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya dadka ku dhintay qaraxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika waana mid ka mid ah weeraradii argagixisada ugu cuslaa dunida oo dhan in badan oo ka mid ah ehelada dadka ku nafwaayay waxa uu suurto gashay inay helaan meydka eheladooda ayna aastaan kana samraan balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii xataa cad ka mid ah jidhkooda guddiyada u xil saarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan 225 qof kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbedeshay waxaana la xaqiijiyey kuwa badan oo dadkaasi lala'aa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxayse xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsada inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay 14 Oktoobar 2017 Cabdirashiid Mukhtaar Sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Kaxda waxaana uu soo socday iskoyska Zobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taala halkaasi ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub Khatra Carab Cabdi waxay xilligaasi isqabeen Cabdirashiid muddo 10 bilood oo kaliya ah Khatra iyo eheladii kale Cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadigoob waxay tagtay cisbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyey waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan marka uu reeso qarax u dhaca waxaan lagu dhahay Cabdirashiid soo jooga isbitaal buu yaala dhaawac waaye isbitaal uu yaala isbitaalka Digfar buu yaala Digfarka oo raadinayna habeenkii 12 oo raadinayna waa ka weyne meydadkii aan wada dhaxgalnay meydadkan ka taad gureennay isbitaal Madiina meydadkii aan dhaxgalnay dadkii go'gaay iyo wixii kasto dhan waa wada dhaxgalnay waxaan dhahanantay heeday Cabdirashiid u garanaysan waan ka weynay marka nin hadda ka tagay si hadda san ka tagay hadda qofku meydkiisa xitaa aad maxay heeday aad aasato wax weyn bay tahay sama habeenka markaad meydkiisa ka raadiseen Digfeer eed weyseen maalintii ku xigtay halkee tagtay maalintii ku xigtay waxaan tagnay Digfeer aan ku noqonay dhowr maalin Digfeer ku noqonay hadana isbitaal Madiina aan aadnay isbitaalka Daarushitaan aan isbitaalada dhan isku wada marnay waxa xamar Muqdisho isbitaalka inta la dhaawacyada la geeyo dhan isku wada marnay maalintii saddexaad keesanayaan aadnay adiga isbitaalka baan marna ka bixinay marna baan galayna markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wajigiisa ma dhar ku xirnaa ma kabaha marna ma istiri mid meyd buu u yara eg yahay ama qof meel yaalay meyd badan oo halka aan aragnay waa loo yara maleeyay laakiin ma aysan noqonin mar maxay ahayd meyd isbitaal Madiina yaala waxa la dhahay isaga waaye waan fiiriyay isaga meel aan ooga hongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaaya u imaadeen oo qaateen marka sidaas lagu waayay isaga imise qof oo meydad fiirsay wax badan wax meydkiiba waxa dad isaga go'ay u badnaayeen waa dhaxgalno dhaxan fiirino wax tiro ma laha wixii la fiiriyay tiro ma laha dhowr boqol ay gaarayeen Cabdullaahi Cismaan Faarax waxa uu ahaa 22 jir waxa uu shaqayn jiray mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhamaatay shaqadii waxaana uu hooyadiis Jamaal Cabdulle Maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si uu ugu iibsado mootooyinka loo yaqaan bajaajka ugana soo saaro biilka reerka maalintii Jimcaha ee ka horeysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis
14 Oktoobar 2017 Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa Bakaaraha markii uu qaraxu dhacay. sugta markay dhacday taleefankiisaan wacay hawada ayay ka baxsanayeen taleefanada dhan masaajid ayaan galay salaada ay dukada casirka ilaahay man bari waa iska soo baxay xaafadaan imid gaarin soo qabsaday xaafadaan imid markaan xaafadin adeegan wadaan iska dhigay waan baxay waxaan aaday meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay waa madaxa waa gelinay meeshan si xun ayay u gubanaysay dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay inta qola waa ku soo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qoralka meydka waa galay meesha naaxinta ay ii dhiman tahay ayaa dadka nala soo xabadeeyay maqribkiina uu galay oo isaga soo baxay waxaan tagay isbitaalada sida Barandir oo kale kuwa shakhsiyaadka si gaar ay u leeyihiin kan Digfaar adiga waxaasoo dhan marka waan ka waayay. Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobayay maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda. maalintii ku xigtay waan dheelmaday aroortii dheelmaday mootaan qaatay mootadii wadooyinka waan ala ka xiray meel marnaa weynay lugta aan ka tumay maxanaha xaafadeyda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaal magaalada ku taalo ilaa kaydsanay ilaa kuwa banaanka oo ceelashay soonahooda ku yaalo ayaan isku maray 2 maalmood 2 habeen aan toos u socday oonana seexan aanana huyin intaasna waxa weyn waan waayay wax macnaha nolol geeri waan arki waayay dabadeed sawiradiisa ayaan waxaan u kala diray Turkishka iyo Suudaan waxba jawaab kaba aanan soo helin oo islahay arma dadka la qaaday oo qof miir leen waa la iska qaaday dadkii arma la qaaday in sawirkiisa ugu raadsho waxba ilaa hadda ma helin ma waa gartay marka maxaad ugu malaysay marka inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goormaad go'aansatay halkaas ku dhintay waan samriya qofka hadii oo macnaha noloshii markaad weydo oo taleefankiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatada gaadhay qofka marka waa dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaas oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cadeyna oo u haayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weeyaan ma aan hayo ma aanan helin meydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo la shito bay dadku u akaadeen waa bini aadan xataa ma isdhehaysid marka waxa weyn dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyn waa la iska xawaalo wadareed baa laga dhigay lafiya la iska guray dadkoodiina waa dadkoodii weysan marka dadkaas ku jiro iyo kuwa firdhaday oo hilboodu ay dabaqada fuulan oo galay labadaas bay mataamoyaan hadduu nool iyo qof nool intaas inaan la weynaadba waa dareensantaa walaal. Cabdinaasir Cabdullaahi Macallin oo 30 jir ah waxa uu ahaa dareewal ku shaqaysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda magaalada Muqdisho una kala goosta gobolada. 14 Oktoobar 2017 Cabdinaasir waxa uu xamuul ka keenay dekedda magaalada Muqdisho waxaana uu baabuurkiisu marayay iskoyska Soobe markii uu qaraxu dhacay. aabihiis Cabdullaahi Macallin Cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. أنا طبعا ضريبة محمد شوقي بدي لا بسيبها شوقي ضد أي بليرة أصحابها إيه ضد أنا يسوي شيء يحقق شيء من كاس اللهم حرس سال كاس ومارتي بركاس ومري مركي قرح دعي بركاس ومري ودكدو ويسوي تري أوركم دكدو أراتك سوق على اللي يري دكدو كوي أول سوي تري أو حتى يري السوق عن كران يري السوق كره كواسا حتى كمل هاي ضدكي الله هذا ضدكي إلا أيوه maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax lafa gubtay iyo bal wax meesha calaamadii wax ka raadsi marka waxaa la yidhi baabuurta iska daa dadkii xataa waxaa ololay baaburadii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka oo waday baabuuraha uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhi adiguna dadaad qaadiyay meydkiisi ma la helay oo wax uun ma laga duugay maya xabad lagama duugin dadkii anigu aan aabahooda ahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii ila dhashay iyo waxa dadkii dhammaan oo familka ahay oo meesha ku soo baxay ninkaas waxa intaasaa la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan sii daayeen oo leeyahay adinka wax soo raadinaysa soo raadiye waana uga quustay wax hal cad lagama arkin cad keligiisa lagama arkin
inkastoo uusan xilligaasi u soo safrin magaalada muqdisho haddana waxaa baadigoobka cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada muqdisho cabdulaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tegtay waa tegey meeshii waxaan tegey burburkii oo maaragtay guryihii waxna la dhistay waxna maaragtay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayey waxna aan meeshiiba burburkiiba loo tegin hadda meesha maxaan ka sheegayaa waa tegey maxaad dareentay markaad tegtay wallaahi waa gaale waxaan dareemay qof kasta oo islaama oo maaragtay beerkeeda maaragtay meeshii oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay nixi laheed iyo tiiraayadii qaba laheed waa iska qiyaasi kartaa adiga awlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aad soo koriday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi yahayn oo ku qabsaday hadde meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel lagu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogiddeeda iyo marka arrintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan hadde walaala waxa weeye qofka haddaad moogta adigu aad koydo kula joogta ay sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adigu aad gacantaada adigu maarata gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto hadda waabad ku samraysaa isla markiiba waad ku samraysaa laakiin qof bani-aadan xoog laho maarata qof dhalinyaro ahaa oo shaqaysanayay ee la yidhi meeshaan dab ku qabsaday de wixii meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna ina qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maarata alla dartiis u samarto oo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun inay tiraan maahan wax kale u eg oo ay samayn karto qaba karto oo maanta ay leedahay waxaasaan ku boodaya ma aysan jirin xanuunka iyo murugada eheladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale kasokoo murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysas soomaaliyeed ah khatra carab cabdi waxaa xilliga saygeeda uu dhimanayo ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey waxa aan weydiiyey goorta ay la noqotay inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood adisaan u raadinayna markaan maxay ahayd raqiisa iyo ruuxiisa u weynay qofka bini-aadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay moogtahay inaad samirteen maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro 12 beri adig markay kasoo wareegtay kabacdi laan iska fadhiisanoo isdhahnay ay aheeday waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weynay weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheeginoo bilo iyo sanado ma iska maqna maya weligiis yaalihiis lama weynin hadduu wax yar meel u aaday xitaa wuu isoo wici jira aba halkaasaan joogaa ay ahayd saasaa jirta halkaasaan joogaa taleefonka xitaa macaal hadda dabla-aan ka yahay xitaa wuxuu dhihi jirta dabla-aan oo iiga dhami rabaayo ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayd intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhawaabaa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxaa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa waan isdhihi jiray marmar maxay ahayd inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayd iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayd qaraxii oo dad cararayo waashaa la sheegaayo dadkaas carare muu ku jira xabsi muu ku jira mar xabsiyada xitaa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin hadeer waxaan umalaynaa cabdirashiida nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay hadda xabsiyadee tagteen xabsiyaal badanaa c a d iyo meel dad lagu dhahaya waxbaa lagu qaqabtay iyo waxbaa lasoo kasheeriyey weliye cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn carruurta jamaad cabdulle maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga ayay tiri jamaad cabdulle maxamuud ma samirtay hadda waan samray oo waxaan ku samrayaa qadarta ilaahay baan ku samraa maqayru shari ilaahay wuxuu yiri qayrkaygana shukru sharteedana ku sabar waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo qof noolna aan la weyneynin qof dhintana aan la helayn maxaad ku xasuusataa wiilkaaga ma isagaa u weynaa carruurtaadi ku tiri waxaan ku xasuustaa maba koobin karo waxaan ku xasuusanayo waa gartay miyuu ku gargaari jiray ma ku gacan qaban jiray ciyaalka ma gargaari jiray qof nooceeyu ahaa nacam
iskoolka carruurta isaa ka dhiibaayey jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinayay xagga waxbarashada qof aada u fiican uu ahaa. wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah. wuxuu ahaa qof aada u edo badan. wuxuu ahaa qof aada u naadgelyo badan. dadka buuqa iyo macnaha badan ma usan ahayn. dadka sheekada badan oo saas macnaha ma usan ahayn. laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aada u edo badan oo diinta islaamka aada u jecel. wuxuu ahaay maxanaha waxbarashadiisana aada ugu firfircoon u ahay. waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin. kaalinta koobaad ilmaha kale u ahaan jiray. marka xagga waxbarashada, xagga akhlaaqda, wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena. maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas? horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxaa weye ilaahay wuxuu leeyahay kullu nafsi bimaa kasaba rahina. naf walba waxay kasbata ayada ayay rahmad u yihiin. dadka macnaha dadkaas dhibaatadaas u geystay inkastoo ilaahay wuxuusa qadarin aysan dhicin, balse wixii xun aan rabbiga qaalaqa aan loo tiiri karinin. dhibaatadaas dadka geystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimna lama oran karo. muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin anigu ma u malaynaayo, mana ila ahan. waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oon adduunka meel ay ka dhaceen shanta qaaradooda adduunka cid sheegtay weli lama arkin. marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaah ayaa la xisaabtamaya. maalin aan la kala xoog badnayn, oon cid xaqin ka dhaa'aysan jirin, oon cid dulmin ka dhaa'aysan jirinin, oo rida dambe mudda geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah. cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu koriyaa carruurtii wiilkiisa. dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga, ayuu igu yidhi cabdulaahi macalin cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. dadkii waxaa geystay maxaad dhehi lahayd? walahi dadkaas aniga maanta waxaan idhaahdo ma aqaano. ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya. ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya. rabbigii abuuray oo maaragtay qalqaday ayo ayakaa xisaabtamaya. annagana awaysan jirin cid maanta inta maxkamad noo soo taagta dhayda dadka anaa falkan geystay maxkamadan aa laydinku kala dacwo qaadaya awaysan jirin oo hadda maanta aanan raja aanan ka qabin. asayka ilaahay baa xisaabtamaya. qof walba maalintii ilaahay la hortago qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya oo xaqeedi usoo goynaya. qof caynkee buu ahaa wiilkaaga? walaa wiilkayga nin dhalinyaro ah oo maaragtay xoog sita ah oo maaragtay dalawalnimada iyo xoogaa makaanignimada maaragtay abuuran muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray. nin wanaagsan oo maaragtay haddii yeelan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahayo maaragtay nin de annaga waa nala fiicna. annaga waxaa nala ahay nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna saasoo nalahay annaga. haddee ilaahay khayra siiyo waxa weeye asagana ilaahay noo naxariisanaya. annagana ilaahay maaragtay awlaada kale ilaahay nagu anfacaya. ururka al-shabaab ayaa hay-adaha amnigu sheegeen inay ka dambeeyeen qaraxaasi. bishii febraayo ee sanadkan ayaa maxkamadda milatariga ee soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. baaritaanka dawladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. xasan aadan isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Zoobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka al-shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi. qayb kale oo ka mid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14 Oktoobar waa carruurta ku agoontooday qaraxaasi, kuwaasi oo badankoodu ay mid ka mida waalidkood ku waayeen qaraxaasi. qayb yar oo ka mid ahna labada waalidba ay ku waayeen. guud ahaan carruurta ku agoontooday 3 qarax ee Zoobe, Naasa Hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2360 qof.
kuwaasi oo 1547 ay yihiin carruur aan weli qaangaarin. 1398 ka mid ah carruurtaasi aan qaangaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii Zoobe. guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa arooriyey lacag ka badan 4 milyan oo dollar, waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay, iyagoo siiyey lacago u dhexeeya $300 ilaa $1,000. cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi. carruurtaasi horta badankoodu 85-90 waxa weeyaan xamar dadka degan ayay yihiin, laakiin waxaa jiray carruur mataqaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay, waxaa jirtay baydhabo, walnaweyn ayaa jirtay, qoryooley ayaa jiray. marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa carruur aanu si rasmiya xogtooda u ogaan weynay oo diaasbarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray. marka carruurta badankoodu waxa weeyaan Soomaaliya joogeen, dadkooda ayaana lagu taakulaynayay. meel aan annaga carruurta ku ururinay ma jirto, cid annagana soo wargeliday oo carruurtii agoonta ahayd meelaan ku ururiyana na tirina ma jirto. marka sidaas daraaddeed waxaan ictiqaadinaynaa carruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan. sidaas ayaan annagu ku taakulaynayna, ma ahayn meel gaaran isugu ururina ma jirto. maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo carruurahooda? waxa weeyaan waxaan anagu qabanay horta sideednaba waxaan qabanaynay anagu waxay ahayd lacag baan hayn. lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay. markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan niri aaskii iyo mataqaanaa qarashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay. qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan anagu soo gaarnay, intii aanu hayna liiskooda. markii xigay carruurtii waxaanu siinay haddana 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo kamid ah 1547 kamid ah 300 aan siinay. mar ka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaanu siinay. marka cunug kasta oo magaciisigaasi anagu waxaan ugu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay carruurtii. marka markii hore waxaan ka fikeraynay in dawladda iyo hay-adaha mataqaanaa khayriyaadka ama samafalka la isu tago oo carruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga shaqada nagala wareegto. taasina ma aysan iman. sababtaas darteed ayaana waxaan u samaynay inaan lacagtan dambe oo $700 aanu siino. marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiinay. guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo-qaad u helaan carruurta aan qaangaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi, kuwaasi oo dhan 1547. waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye. hase yeeshee ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin carruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda. carruurtaasina waxaa ku jira 597 carruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda Soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo-qaad loogu helo. culayska horta ugu weyn oo annaga walwalka badan nagu hayay nolosha dadka Soomaaliyeed ayay la mid yihiin oo kala duwan, ama carruurta iyaga da'dooda ayay nolosha la mid yihiin. laakiin arrinta oo walwalka gaarka lahayd waxay ahayd carruurtaasi intoodii wax baran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin. lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd carruurtaa waxbarata sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda. horta taasi way jirtay. waxaa jiray oo kale carruur oo markoodii hore ay hayeen dad ehela ah oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen, waalidkoodiina horey oo usii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray. tiradooda aan annagu haynana ma badnayn, wax yar bay ahayd kuwaas. marka arrinta aayatiinka carruurta ee dhinaca waxbarashada ah ayaa maaragtay welwel noogu badnayd. marka waxaanu bilownay inaanu hay-adaha samafalka iyo dawladaha qaarkood aynu xiriir la samayno. masalan hay-adan la yidhaahdo Qatar Charity oo kaleeto waxay markii hore noo sheegeen in aan liiskooda siinay 500 oo carruur ah inay kafaalo-qaad u raadiyaan. safaaradii imaaraadka oo iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amiirkoodu uu
amar ku bixiyey 300 oo carruura inay kafaalo qaadaan, iyagana liiskoodii waanu siinay 300. waxaa kaloo jiray hay-ad kaleeto oo la yidhaahdo guddiga gargaarka Africa oo iyaduna u raadinayday 150 carruur ah, kontomeeyo kaleeto iyo 150 qolo kale oo markiiba noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejino. marka carruur adiga 950 ilaa 1000 ah ayaanu ku talagelaynay markaan annagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho. ma heleen marka? maya, weli ma aysan helinin, weli ma helinin. waayo waad iska taqaanaa markii aan annaga ku wareejinay kabacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii ay wax ka heli jireen. marka dhammaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin. marka carruurtaas dhammaantood 1547 cid weli kafaalo qaaday waxbarashadooda ma jirto? maya, ma jirto, inta aan ognahay ma jirto. dowladda Soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqoto kafaalo-qaadka ama daryeelkooda kale? dowladdu waxba nooma sheegin, laakiin markii aanu annaga shaqada gabagabaynaynay ayaa waxaanu xafladii gabagabaynta ama soo xiritaankii waxaan ku qabanay xarunta gobolka Banaadir. marka duqa magaaladana waa joogay, dowladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. waanan u sheegnay intaasoo carruura oo carruur ku dhow tiradoodu ku dhowna in kafaalaqaad laga sugayo oo loo baahan yahay in lasii dabagalo oo hay-ad dowladeed ay dabagasho, kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo. marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaara oo aan ka codsanay in carruurtaasi dowladdu iska xil saarta ayaan anagu samaynay. meeshaas aana noogu dambeysay. marka carruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddan ka jirta. carruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waayey waxa ay ku sugan yihiin. marka way dayacan yihiin. dabcan waxaynu u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaalo qaado ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno. laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyey warkama hayno. qoysaskan laga baxayo carruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama u dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda miyay leeyihiin oo maaragtay arrimahan sii dabagala? maya, ma intaan ogeyn ma lahayn. laakiin waxaa jiray dadka waa aad bay u kala duwan yihiin. waxaa jira qoys 14 carruura oo adigu 30 carruura ayuu ka dhintay, laakiin markii dambe oon ogaanay 14 ayaa qaangaar aan ahayn. 4 hooyo ayaa kala dhashay. marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen. marka dadkaasoo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda carruurta haddaysan helinin ay iyagu mataqaana ka baxaan. marka yacni dhibkii weyneyd oo dhacday baa cid waliba hebella-an fariirtay. marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dawliya ah ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee carruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd. laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo inay wax samaystaan iyo aad bay u adkayd. dadka dhib weyn baa gaartay. tirada guud ee dadka loo sameeyey gurmadka waxay dhan yihiin 3,356 kuwaasi oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen, kuwii ku dhaawacmay iyo weliba dadkii ku agoontoobay. maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho, mid caafimaad iyo mid kale iska badaaya aysan helin? maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba? wallahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaadaa dhici kartaa. dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimirka ah. waxaa iman kara inay carruurta alfacood ka haraan oo aysan waxba baranin. waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamaya inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa. waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragtay halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ah ayay noqon karaan. weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabo inuu u dhintay, hooyadoodna ay markii dambe dhimatay oo dad ehelaa iskala jooga. dadka eheladaana aysan wax badan oo ay noloshooda ku kafaalo qaadi karaan aysan haynin, laakiin un ay cidlada ka dugsanayaan. carruurtan 1547 imisaa labadii waalidba ku waayey dhacdadan? may jiraan kuwa saas?
way jiraan laakiin aad bay u yaryihiin kuwa labadii waalid yareeya ma hayo xogtaas ma hayo laakiin aad bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayey laakiin waxaa badan kuwa labada waalid horey u dhintay mid u dhintay kii kaletana uu hadda dhintay. waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar tiradooda miyaad haysa? raggaa u badnaa ragga aad ugu badnaa maaragta dumarku 120 130 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan. waa garta marka maxay kula tahay bay sababta ay hay-adahani ugu guuldaraysteen inay ballanqaadkii ay sameeyeen oofiyaan? horta hay-aduhu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dawliya ay u dabagasho. hay-adahani waa hay-adaha khaliijka ayay ahaayeen. hay-adaha khaliijkuna waa nidaam dawliya ayay yaqaanaan runtii iska socda iyo waxyaabahaasi maaragta uma dhega nugla waa mid waaye. arrinta kale ee jirtaa waxa weeyaan khilaafkan khaliijka oo isaguna dawladda hadda imaaraadka oo kaleeto hawshii ay haydo oo dhama ayay ka baxday marka tan ma sii wadi karinin waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid. khilaafkuna wuu saameeyey qadarka xataa qadarka waxaa la ii sheegay in diridda lacaguhu ay culays badan uu ka jiro inay jiraan oo xataa carruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay ula-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii ay siin lahaayeen aan weli la keenin. marka aniga waxay la tahay dagaalka khaliijka khilaafka khaliijka guud ahaan iyo dabagal oo dawli ah oo aan jirinin labadaas ayaa ugu weyn baan umalaynaya. hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan hay-adihii wax siin jiray laakiin waxay u baahnaayeen gacan dawladeed inay helaan. dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey carruurta ku agoontooday qaraxii 14 Oktoobar. balse ilaa haatan nooma suurtogelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su'aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14 Oktoobar.